labaad xeerka koowaad wuxuu ahaa waxay ahayd ka horumarinta kana waxaa horumargelin xeerka horumargelinta waxaan soo qaynaa isku geynta iyo waxay ahayd isku dhafashada marka waxaa horeeya isku geynta ama wadarta ama ku darta marka aan isku geynayno saddex ama isku darayno saddex tiro ama ka badan wadartoodu waa isku mid ka horumarinta kooxaynta tirooyinku saameyn kuma lahan wadarta tusaalaha waxaa weeye waxaa la isku geeyay tirooyinka adiga oo adeegsanaya xeerka horumargelinta xarafka ba waxaa waaye 6 oo lagu daray 2 oo lagu daray 3 xarafka koowaad xarafka jana waxaa waaye 8 oo lagu daray 7 oo lagu daray 4 oo lagu daray 1 aynu ka shaqeynaynaa waxay noqon marka xarafka hore wuxuu ahaa 6 oo lagu daray bilfur 2 oo lagu daray 3 horumargelin ayaan ku sameeynaa xeerka horumargelinta ayaanu u isticmaalaynaa tirooyinka haddaan isku darno waxay noqoni marka hore 6 soo qaada marka inta bisha ku jirta ayaa isku dari 2 haddaan ku darno 3 waa 5 maxaa soo bixi marka 6 haddaan 5 ku darno 11 ayaa soo bixi 11 ayaa soo baxday waxaan u qori karnaa sidoo kale horumargelinta qaybtan bisha ku jirta ayaa horumargelin la marka waxaan u qori karnaa bilan furayna markaas aan qori karnaa 6 oo lagu daray 2 kadib bisha xaraynaa kadib waxaan ku daraynaa 3 oo 3 banaanka gelinayna qaabkaasna u qorayna oo wax saameyn wadarta kuma laha haddaan 2 ku darno 6 waxaan soo bixi 8 oo lagu daray 3 markaas waxay noqoni 11 sidoo kale waxaan u qori karnaa bilan furayna kadibna waxaan qori karnaa 6 oo lagu daray 3 kadibna labada banaanka gelinayna iyadana qaabkaasna u qori kartaa wax noqoni markaan 6 ku darno waa 9 oo lagu daray 2 iyadana waxay noqoni 11 marka dhamaantood waa isku mid haddaa isticmaasho xeerka horumargelinta xarafka ba waxaa waaye waa 8 oo lagu daray 7 oo lagu daray 4 oo lagu daray 1 markaan ka shaqeyno waxay noqoni 8 aan 7 ku daraynaa waxay noqoni 15 ay noqoni kadib waxaan ku daraynaa 4 hal ku dar waa 5 marka waxaan soo bixi 20 15 markaan 5 ku darno waa 20 waxaan kala u qori karnaa tirooyinkan waxaan u qori karnaa 8 banaanka dhigaynaa kadib oo lagu darayna bishan furaynaa 7 ayaa iyo 4 gudaha gali kadib wanka halka banaanka dhig kadib waxay noqoni 8 soo qaado kadib labada bisha ku jirta isku dar 7 wax ku dartada 4 waa 11 waaye kadib 11 hal ku soo qor kadib waxay la mid tahay 11 hal ku dar waa 12 8 ku dar markaas waxay noqoni 20 ayana qaabkaas oo qori kartaa waxa kale oo qori kartaa haddaan u qorno ka waran 8 haddaan banaanka noo taalo oo isku darno 7 banaanka eegay kadib lagu daro bisha fur halka iyo 4 gudaha gali ayana tiro maxay noqoni isbedel xisaabta sida ay noqoni wayna fiirinaa 8 oo lagu daro 7 oo lagu sii daray 2 bis ku jira isku dar waa 5 kadib waxay noqoni 7 5 ku dar waa 12 8 ku dar waa 20 markaas waa artaas dhammaantood waxaa soo baxay jawaab isku mid ah haddaa ka horumarisay iyo haddaa kala dambeysayba waa isku mid qaabka arta u kala horumari ama u kala horumargali ayadana waa isku mid oo wax saameyn wadartada kuma laha tusaalaha shanaad waxaa la isku geeyay tirooyinka soo socda adiga oo adeegsanaya xeerka horumargelinta waa 7 oo lagu daray 9 oo lagu daray 3 waxay la mid tahay 7 oo lagu daray 9 oo lagu daray 3 macnaha qaybtan hore iyo qaybtan hore marka isku daro isku mid miyaa mise wax qaldan ayaa soo baxaya aynu soo qaadano waxaa 7 oo lagu daray 9 oo lagu sii daray 3 ma la mid tahay 7 oo lagu daray 9 oo lagu daray 3 maxay ku duwiin 7 iyo 9 ee qaybtan bisha ku jirta qaybtan waxa ku jira bisha 9 iyo 3 marka qaybtan isku dhigmaan
waynu fiirinaa kuwa bisha isku jira ayaan marka horeysa ka shaqeynaynaa. 7 haddaan sagaal ku darno waxaa noo soo bixi 16 oo lagu daray 3. Qaybta kale waxay la mid tahay 7 soo qaado oo lagu daray kuwa bisha ku jira ka shaqee 9 3 ku dar waa 12. Marka 16 3 ku dar waa 19. waxay la mid tahay 7 12 ku dar ayadana waa 19. saad u jeedo dabcan labada qayb waa isku mid oo 19 iyo 19 soo bixi. Marka qaybtan iyo qaybtan hormargalintooda ama kala hormar wax saameyn kuma laha wadartooda oo 19 iyo 19 ay soo bixi. Halka markii ay qorneen ama laga shaqeynay ay tirada ay kala duwaneen oo ay isku nooc ay u qorneen jawaabta laakiin ama wadartooda waa isku mid. qaybtaas waxay qaybta isku geynta qaybtan waxaa isku dhufashada. Marka aan isku dhufanayna 3 tiro ama ka badan tarantooda ama isku dhufashadooda waa isku mid. Kala hormarinta kooxaynta tirooyinku saameyn kuma lahan taranta ama isku dhufashada. Aan qaadano tusaale raadi ala taranta ama isku dhufashada tirooyinka adiga oo adeegsanaya xeerka hormargelinta. Waa 5 oo lagu dhuftay 6 oo lagu dhuftay 3. ayaan ka shaqeynaa waxa waaye 5 waa 5 oo lagu dhuftay 6 qayb labadaasi bilba ku jiraan oo lagu dhuftay 3. aynu ka shaqeynaa marka kuwa bisha ku jira marka horeysa ka shaqee waxay noqon marka 5 marka 6 ku dhufano waa 30 oo lagu dhuftay 3. waxaa noo soo bixi marka 9 noo soo bixi. markaan 3 ku dhufano 9 waaye. qaabkaasi oo 5 iyo 6 bisha ku jirta 3 banaanka taala 9 soo baxday. wal haddaan ka waran gelino bisha 6 iyo 3 haddaan bisha gelino ka waran jawaabta ma ka duwanaani mise isku mid bay noqonay. oon 5 banaanka dhigno waan fiirinaa waxay noqon marka 3 lagu dhuftay 6 waa 18 ayaa lagu dhuftay 5 soo qaado waxay la mid tahay 18 marka 5 lagu dhuftana ayadana waxaa ku soo bixi 9 baa ku soo bixi. 18 marka 5 ku dhufato waa 9 waa isku mid. haddaan ka waran gelino bisha 5 ka waran 5 iyo 3 kadibna aan 6 banaanka geeno ayadana 9 ma soo bixi mise way ka duwanaani. balan fiirino 5 ayaan 3 ku dhufaynaa waa 15 ayay 6 ku dhufo waxay noqonaysaa 9. dhammaantood hormargelintoodu waa isku mid wadarta jawaabtooda ama wadartooda waa isku mid oo 9 ayaa dhammaan ku soo bixi. tusaalaha 7 waa ka shaqeeya tusaalahan adiga oo adeegsanaya xeerka hormargelinta. waa 10 oo lagu dhuftay 7 oo lagu dhuftay 5 iyo 10 oo lagu dhuftay 7 oo lagu dhuftay 5. laba dhinac isku dhigmaan ayna soo qaadayna waa 10 oo lagu dhuftay 7 10 oo lagu dhuftay 7 bil ku xid oo lagu dhuftay 5. qaybta kalena waxa waaye 10 oo lagu dhuftay 7 oo lagu dhuftay 5. laba dhinac hada inay isku mid noqdaan oo hal jawaab ay soo baxdo. marka horeysa qaybta bisha ku jira aan ka shaqeynaa 10 7 ku dhufo waa 70 oo lagu dhuftay 5 soo qaado waxay la mid tahay 10 ka soo qaado maadaama ay bisha ku jirin kadibna kuwa bisha ku jira isku dhufo 7 5 ku dhufo waa 35 waxay la mid tahay 70 markaan 5 ku dhufano waxaa noo soo bixi 350 soo bixi. waxay la mid tahay markaan 35 ku dhufano ayadana wax noo soo bixi 350. marka waa isku mid oo 350 iyo 350 ayaa noo soo bixi. waxay ku kala duwanayeen qaabka loo qoray ama qaabka loo hormargeliyay ay ku kala duwanaayeen oo mid waxay 10 oo dhuftay 7 oo baraaka ku jira ama bil ku jira. qaybta kale waxay 10 oo banaanka taala oo lagu dhuftay 7 oo lagu dhuftay 5 oo ku jira bil. marka laakiin wadartooda ama jawaabtooda waa isku mid oo 350 ayaa mid kasta ama laba dhinacba ku soo bixi.